ururka horumarinta deegaanka Soomaaliland ee Sodfo urur ay ku midoobeen dhalinyaro reer Togdheer ahi isla markaasna ku shaqeeya si mutadawacnimo ayaa maanta gaadhsiiyay isla markaasna ku beeray masaajidada iyo saldhigyada booliiska ku yaala xaafadda Cabdilqaadir Koosar 15 geed oo dhira deeqdani dhirta ee ururka Sodfo gaadhsiiyay xaafadda Cabdilqaadir Koosar ayaa waxa soo dhaweeyay dadweynaha degan xaafadaasi gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka Soomaaliland ee Sodfo Jamaal Khadar Cayngal iyo qaar kamid ah madaxda ururkaasi Sodfo ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqdani dhirta waxaan maanta ka beernay xaafaddan Cabdilqaadir Koosar masaajidada iyo saldhiga dhir gaadhaysa 15 geed dhirta 15 geed gaadhaysa waxaan ugu talagalnay in la manaafacadsado oo harkeeda la manaafacadsado waxaan xaafaddan ugu baaqaynaa in dhirta ilaashato haddaan nahay ururka horumarinta ilaalinta deegaanka ee Sodfo waxaan naga go'an inaanu dhammaan Soomaaliland ka dhigno cagaar meel kasta tahay gobol kasta degmo kasta waxaan ugu baaqaynaa shacbiga reer Soomaaliland inay garab istaagaan dhirayntaas iyo horumarinta deegaanka wadno aad iyo aad baa mahadsantiin baan leenahay shacabka intiina garab istaagtay intiina kalena waxaan rajaynaynaa nala shaqeey doontaan aanu keenay xaafadan dhir gaaraysa 15 geed oo aan ku beeray saldhigyada masaajidada xaafado kamida xaafadaha marka waxaan ugu baaqaynaa xaafadda in dhirta ilaashato oo ay manfaacsato annagoo keeni doona dhir kala badan kuna soo noqon doona xaafadda hadii la ay ka dhigo waxaan ugu baaqayaa guddiga in dhirta ka warhayaan oo waraabsadaan iyaga ay anfacaysa dhamaantiinba haddaan dhulku dayr lahayn amaba wax tahaaro oo indhaha deymadooda iyo u roonafku doogsigaba waxaynu naqaan dumaayo waliba lama degaan dhulkeeni daaqa iyo nimcadu ku daboolanayd waxa dam ka siiyay oo ka sii dhigay degal banaan nimaan dal shisheeye iyo ka soo degin meel kale oo hungurigu u daloolo oo wuxuu budoolaya sidoo dinaareeyo u helila dollar dalkiisa meegayo iimaankaba wadalac dhankoodana qaar kamid ah dadweynaha degan xaafadda Cabdilqaadir Koosar ee magaalada Burco ayaa ka mahadnaqay deeqdaasi dhirta deegaan ahaan dhulkeenu maanta xaaluf baan baa runtii saameyn weyn ku yeeshay maadaama aad tihiin dhalinyaro runtii aqoon-yahano iskaashaday oo maanta u soo kacay gobolkii oo maanta aad ka shaqeynaysaan horumarkii deegaanka annaguna xaafad ahaan waanu idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh runtii aa u garateen Cabdilqaadir Koosar inaa maanta keentaan dhir oo masaajidka oo meelaha ugu muhiimsan iyo saldhigyada aa maanta soo gaarsiiseen وأنا وأكون بهدنقينا حلقة كسي ولا حافظنا Cabdilqaadir Koosar ayaanu kamidna joogna odayaasheedii baanu nahay waxaanu aad ugu faraxsanahay diinta kor loo qaaday guriga Ilaahay dhirta lagu beerayo sharafna waxa leh ururka Sodfo oo noo dhirbeeris nagu sameeyay masaajidada iyo saldhigyada annagoo ku faraxsan arinta lana shaqeynayna waxaan rajaynaynaa waa markii koowaad marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka afraad bay nagu soo noqdaan wa Maxamed Ibrahim Briti